haddaynan ku tabcin dhulkeenna haddaynan u safrin u dhidhiin dalkeenna walaalayaal dunida maanta waxaynu isu furannay oo wufuud badan iyo dalxiisayaal kala duwane ay maalin walba inoo soo booqda Soomaaliland waxay tiraahdaa hogaagu wuu kula marti tagaa waxaanu dib u habeyn iyo dhismayaal cusub oo bilicda ku sameynay xafiisyada wasaaradda dawladda oo badankooda waxaanu ka bilownay caasimadda waddooyin casri ah si aynu ula tartanno caasimadaha dalalka jaarka ah iyo kuwa dunida insha allahu gobolladana waanu gaarsiin doonaa waxaanu dardargelinay dhismaha waddooyinka laamiga ah ee magaalooyinka isku xidha waxaanu idinku baaqayaa inaad gacan ka geysataan oo aydan waxba kala hadhin mashaariicdaas kala duwan ee aynu ku tallaabsannay furintooda beesha caalamku waxaan leenahay dadka iyagu waxay u tashadeen aayahooda dadka iyagu waxay la soo noqotay dalka iyagu wuxuu la soo noqday madaxbannaanidiisii iyo qarannimadiisii Soomaaliland waa xaqiiqo jirta sax iyo xaqtoona ma aha in beesha caalamku iska indhatirto ama iska dhigatirto xaqiiqda aan rumaadda lahayn bulshada Soomaaliland waxay xaq u leedahay self determination sida bulshada caalamku intiisa kale dalkani ma aha waxa la dhashay wuxuu leeyahay taariikh wuxuu dadkiisa u soo galeen halgan dheer dadaalkaas way ku hantiyeen gobonnimadii 1960kii gumaystihii dalkoodana kaga kiciyey gacmahooda iyagoo rabbigood la kaashanaya midnimada maanta la hadalhayo dadkana horseed u ahaa iyadoo ay niyad wanaag iyo walaalnimo qalbigooda ka buuxdo nasiib darro maalintii la israacay 5 maalmood dabadeed midnimadii waa lagu hungoobay waxayna ahayd 5tii Juulaay markii Yuusuf Ismaaciil Sabatar Gandhi khudbaduu ka jeediyey daboolka kaga qaaday xaqiiqda jirtay inay ahayd israaci aanu u dhicin sidii laga filayay midnimadiina lagu hungoobay waxay ahayd dhacdo aan la dafiri karin in dastuurkii la isku raaci lahaa ee Soomaaliya iyo Soomaaliya ku midoobi lahaayeen dadkii reer Soomaaliland ay 90% ugu codeeyeen mada no iyagoo diidmo qayaxan kala hor yimid balse nasiib darro dhigaha laga furaystay taasi waxay dhaxalsiisay inqiraabkii dhallinyaradii saraakiisha ahaa ee reer Soomaaliland iyagoo xilligaas sameeyeen kaasoo bannaanka soo dhigtay dabashadii iyo dareenkii reer Soomaaliland gilgilashadii ismay taagin ee waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta ee loo yaqaanay bakayla qalad iyo iscasilaadii wasiiradii reer Soomaaliland ee xilka ka hayay xukuumaddii Muqdisho waxaana ahayd nasiib darro inaan la tixgelin dareenka ee sida imika caadada ah in Soomaaliya in dad suuqa jooga aan matilin bulshada lagu buuxsado kuraasida waxay ahayd quustii ay dadka reer Soomaaliland israaci kaga talax qabeen muddo yar kadib waxaa bilaabmay qalaalaasihii iyo afkambigii dawladdii dictatorada ahayd cid dambena tale lama weydiin waxaana laga warhayay iyada oo dadka la isku xidhxidhay laguna xasuuqay jasiira ganacsatadii qoorta laysugu dabay oo la dhigay burco malka durduro kalsheekh iyo goobo badan oo aan tiro lagu soo koobi karin waxay ahayd safar xanuun badan iyo wax la xadin leh oo aan la ilaawi karin diyaaradihii Hargeysa ka kacay duqeynayay
maatada hargeysa ka barakacayeen ilaa intii ay dhaafeen xuduudda Itoobiya. waxaan leeyahay madaxda bulshada Soomaaliya hindisaha midnimada annagaa keenay nalama khasbin shalay annagaa Soomaalinimada dan moodaynay oo waana la nacsiiyey annagaa bilaa shuruud iyo is-aamin ku tagnay waxaana lagu kalifay inaanu idinka aaminka baxno waxaanu soo tijaabinay midnimada kalsooni dambena naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenowday dadkii Soomaaliyeed. waxaa kaloo ay nagu kaliftay madax bannaanida iyo qarannimada Somaliland waa laba taabtaan go-aanka bulshada ka timid bulshadu ka yimid gumcna mujaahidiintay ku dhalisay gargaarka eebena ayay ku dhisan tahay. haddaba walaalayaal midnimo hadhay oo shantii Soomaaliyeed soo noqon mayso eeyaynaan walaalnimada seegin. Soomaalida Jabuuti waa dawlad ilaahayna ha u barakeeyo dawladnimadooda. Soomaalida Kenya dawladdoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna ha u barakeeyo. Soomaalida Itoobiya dawladdoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna ha u barakeeyo. Somalilandna halkeeda alla ha ugu barakeeyo. dhammaanteenna waa la iskaashadaa aan ahaano sida walaalaha Carbeed. waxaanu midnimada u taagnay qaran dimuqraadiya oo ku dhisan axsaabta badan madax bannaanida garsoorka golayaasha sharci dejinta iyo xukuumadda kaasoo ku salaysan mabaadida caalamiga ah dawrista xuquuqda aadamaha maamul wanaagga horumarka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaanu dib u dhis iyo horumarin ku samaynay maamulka dowladnimo amniga difaaca qaranka iyo adeegga bulshada inagoo ku bilownay wadamada aynu jaarka nahay. waxaanu adduunyada kula dhaqannay jaar wanaag wax wada qabsi iyo inaynu faragelin ku samayn arrimaha u gaarka ah ee dalalka kale. dhammaan tallaabooyinkaasi waxay dhabada u xaadhayeen inaynu ka midha dhalinno qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Somaliland. waxaynu ku tallaabsannay inaynu u soo bandhigno beesha caalamka jiritaankeenna heerka aynu gaadhnay iyo sida ay inaga go'an tahay hanashada madax bannaanideena. waxaynu ka badheedhnay inaynan cidna uga waaban inaynu tagno kana qayb galno golo kasta oo lagaga hadlayo arrimaha Somaliland. tallaabadaasna waxay inoo soo kordhisay inaynu qadiyadeennu gaadho fagaarayaal badan oo aanay hore u gaadhin. inaynu qadiyadeennu noqoto mid caalamka xogogaal intii hore ka badan u noqdo maanta. inay abuurmaan dalal badan oo danaynaya gogol la u fidiyey wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya. waxaa kulamadaas ka dhashay kana soo baxay heshiisyo caalamku goobjoog ka yahay oo sumad u ah jiritaanka qaranka Somaliland. inaan faragelin lagu samayn karin qarannimada Somaliland wax walbana lagu dhammaystiro wadahadal iyo wada xaajood ku dhisan nabadgelyo iyo is-ixtiraam. waxaanu kasbannay daneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dalkeena gudo iyo dibadda. maanta arrinteennu arrimaheenu waxay galeen marxalad cusub oo aynu ku xaqiijinayno horumarka dalkeenna iyo hanashada madax bannaanida bulsha oo aynu gaadhno geed dheer iyo geed gaabanna waynu u fuuli god kasta oo ay nala gashana waynu ka saari doonaa insha allahu tacaala. gabagabadii nabadgelyada midnimada ummadda iyo difaaca qarnimadu waa asaaska dowladnimada. waxaan salaan fogaadin iyo mahadnaqda u soo jeedinaya ciidamada kala duwan ee had iyo habeen u taagan ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarnimada dalka. waxaa taa la mida aan u soo jeedinayaa waxgaradka madax dhaqameedka culimada dhallinyarada haweenka iyo dhammaan muwaadiniinta ku garab taagan gudashada xilkooda. waxaan ugu baaqayaa
shacabka reer somaliland inay isu taagaan dib u dhiska iyo horumarka dalkooda inay dhexda u xidhaan una midoobaan ka difaacidda qarannimadooda cadowga gudaha iyo dibadda waxaan ugu baaqayaa inay dhowrtaan sharaftooda gobonnimadooda dhaqankooda iyo diintooda marxalad kasta oo ay ka hor timaadana ay kaga gudbaan wadajir iyo midnimo waxaan ballan qaadayaa inaan dalkayga iyo dadkayga ku hoggaamiyo dariiqa horumarka dhowrista xuquuqda amniga difaaca qaranka iyo qabyatirka madax bannaanida dalka insha allah waxaan eebbe inooga baryayaa oo inaynu ku gaadhno munaasabadan teeda kale nabadgelyo horumar ictiraaf iyo midnimo ilaahay qaranka fadhiga mid dadkiisa ku noolaado gobonnimo barwaaqo sharaf iyo horumar mahad allaale idinna waad mahadsantiin wasalaamu calaykum